waxaad damacdeen in aad ganacsigayga aniga hor istaagtaan war ninkii aniga ganacsigayga hor istaagana waxaan u ciqaabaa si fool xumo ah adinkana waxaad damacdeen in aad ganacsigayga hor istaagtaan waxallayo xunxunka waxaan la maqlay inuu isu magacaabo nin boqor inuu yahay war aagiis hadduu boqor ku yahay anigana aagayga ayaan boqor ku ahay laakiin waa nin halis ah aniguna khatar walba waddada loo mara ayaan aqaanaa waan ku imaanayaa waryaa janguura wejigaaga maanta waxaa ka muuqdo calaamad gaduudan waxaan u malaynayaa askar badan inaad soo dhammaysay waa runta kabsaska sida masaska ay u necbiyeen ayaan anigana askarta u necbahay waxaan kuu sheegayaa maalin waxaa dhici doonta dowladda hindiya askar u shaqayda laga wey doono laakiin taas waxay u baahan tahay hub fara badan iyo lacag fara badan goormeen anagu helaynaa mar dhow lacagtaa sheegayda iyo hubkaba mar dhow aad helaysaan laakiin sideen u helaynaa adigu waad og tahay anaga inay askarta naraas war ciidanka aad sheegaydo ayaga dhulka ayay naga raadinayaan laakiin annaga hubkayna kor ayuu soo maraa hadda fiiri kor fiiri mudane janguna adiga waxaad iga dalbatay hub fara badan lacag fara badan aniga intaas oo dhan waa ku wada keenay laakiin aniga mid ayaan kaa dalbanaya adiga waana keliyaha bini'aadmiga ayaan u baahan nahay waa hagaag wax kastaba waad heli doontaa middaasna annaga ayaad nugu og tahay waad mahadsan tahay waxaad ogaataa malaynayaa ciiddeena iyo dadku inay dadku ay badan yihiin waa bixi kartaa is aragti dambe lando waa in aad qaadataa hubkan faraha badanna iyo qoryahan oo aad baxdid oo magaalada dhan soo baabi'isaa anigu waxaan doonayaa dawladda hadda ka dhisan in aan baabi'iyo oo aan ka dhiso dawlad aniga aan u taliyo annaga dhulkeena hooyo si dheedheele kuma baaba'ayo waayo dhulkeena hooyo dhiig iyo dhacaan baa ku soo baxay canaasiirta isku dayaysa inay dhulkeena hooyo baabi'ido gacan bir ah ayaan ku qaban doonaa annaga middaasna waa igu ballan aniga sidaydaba mudane haye waxaan ahay joornaaliste magaceyguna waa siima waxaana rabaa inaan ogaado goorta la qabanayo burcadda oo waddankeena inay baabiyaan rabaan waa muddo dhow burcadda rabta inay gobolkeena baabi'ido waxaan qaban karnaa markay dawladda iyo shacabka gacanta isqabsadaan oo si wanaagsan looga hortago loona hujuumo burcadda doonaysa inay waddankeena hoos u dhigaan waan ku xiray aniga cisbitalka weyn ee dawladda bam ayaan ku xiray markay ugu yartaana 2,000 oo ruux ayaa ku dhimanaysa dawladdana argagaxiso weyn ayay ku noqonaysaa shacabkuna dawladda xaggeeda way ka niyad jabayaan waa markii saddexaad oo falalkan oo kale ay dhacayaan oo dad badanna ay ku dhammaadeen dawladdana middaas waxay ku tahay sharaf dhac waayo burcadda falkaa ka dambayta ciidanka ilaa hadda weli gacanta kuma dhigin middaas waxaaba ka sii dara oo iyayihiin nimankan caadada xun ku dhaqmaya oo bili'aadnimada ka baxsan laakiin marka hore waxaan ogaanaynaa ninka sirteenna fashilay aniga inta maxay keentay inta waxaan kuu keeni taliyeega inaan ku baro war nafsadaada haddaad jeceshaha runta iska sheeg maxaad kalead askarigu sheegtay aniga wax kalma sheegin tali oo ku salaamay anigoo qaldan ayaa tutoosis taas ayaan kuu mahadnaqayaa haddan ninkan walaalkii waaye egool waaye salaam waan kaa qaaday walaalkayga marka hore jidxun ayuu ku socday arrintaas markaan u sheegay wuu ii oggolaaday way fiican tahay aniga hadda waan baxayaa cadeymo ayaan bima ka diyaarinaya ninkan maxaa u sii daysay waar ninkan wax dembiya u leeyaha ma jiro oo adiga aad dembila tahay aniga haa adiga weligay aniga kaama shakisanayn adiga laakiin maanta waxaan ogaaday adiga in aad hub ka dhoofisid adiga tali waxaan anigu ahayn ha igu tilmaamin war wax beena ma jiraan waa run maxaa caddaynaya inaan anigu dembiile ahay aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada ninkan ku hortaaga ma garanaysaa haa waa rabii walaalkiisa askarigan ayaa soo xiray waxuuna sheegay adiga inuu kula shaqeeyo waa been tali waayo ninkan waa dhagool waa dhagool haye waa dhagool ma ninkaanaa dhagoola war hadal waryaa
aniga dhagool miyey cabsi adiga aan ka cabsanayo ayaan dhagool u noqday maantana waxaan sheegayaa in adiga ay ugu qasabto inaan burcad noqdo gaashaanle arrin walba aan samaynaya ninkan ayaa ku lug leh isbatooraha iyo gaashaanlaha waxay caddeeyeen isbatoora kundan inaas gacan ku dhiig leeyahay ogaada maahine is ilaaliyaan ni dhahaa mago aniga meeshaad geli laheedeen idinkaa taqaanin hadda annaga ayaa adiga kugu orodsiinayno waddo uu ka shidan yahay dab holcaayo ayo macnihiina wasiirka maa nabturuq la siihaa maya wasiirka dilkiisa laguma degdegaayo anigu waxaa ii roonee dambiilahaas kuntan inaan hadalkiisa aamino marka horeba sideeda adoo kuntan meeshaan mayaal waa ku joogjoogsadeena khaladkeen ma dareenteen hadda haa wax caddeen ma laga haayo ninkaan ninka dilay nin yar ma aha anigaa ka saaya ninkaa ninkan dilay yaa waay waxaa dilay nanduu weliba ninkaas waxaan u malaynayaa adiga inaad rufyaan u tahay alloor aday waxaa iigu cad inaad xanaagayga fiiriso soo maa maya aniga waxaan kuu wacday inaan kuu sheego inaan hadda anigu askarta garab taagannahay waxaadna ku dhahdaa rufyaanka aad adigu rufyaanka u tahay goordhow waxaa kuu soo soco nin adiga ku dilaayo sidaa ku dheh ma garatay ninkaas ma ogyahay inaan anigu ahay dilaa waa og yahay laakiin waxaas rabaa usiga inaad sharciga xoog ku qabsado shalay shaatigaa laga dhigi maanta waxaas rabaa shaatiga inaad shanta isku qaato unaka maka yeelena hal nin laba faras ma fuuli karo laba farna hal faraanti ma wada gelaayo war dood badan iska daaya ninkan waxaad fahamsiinaysaa hawsha uu qaban lahaa taleefonka waxaad iigu dhahday inaan kula kulmo ayaan rabaa kulankaaga ma waxaad iigu tusayday inaad tahay nin garbahiisa hub lagu ilaalinayo aniga sidayda afkayga hadal kama baxay holca ayaa ka baxa marka sidaa darteed meel kasta oo aan aadayo staff ayaa ila socdo waxaa kuu roon aniga inaad ila saaxiibtid waxaan kaa dhigayaa xabad markii la maqlo dhawaaqeeda dawladdoo dhan ay wada argagaxayso haddii aad isku daydid aniga inaad xiriir ila yeelatid xabadda aad sheegaysa xabad ka dhawaaq kulul ayaan anigu dhagahaaga ka yeersiinayaa adigu waxaad damacsan tahay shaarba libaax inaad ku ciyaartid aniga ima garanaysid anigu waxaan ahay maroodi markuu doonana geedaa jajabinaya markuu doonana geedka dhanba xididada u rujinaya oo gadaashiisa ka tuuraya war adiga waxbaa isku matalin maroodi ee bani'aadnimada ku ekaaw ee waxaan kuu sheegayaa aniga mar dambe kulan haddaad ila yeelatid aniga neefta ayaan kuuga celinayaa ogow anaga gacanta booliiska ayaan ku jirnaa maxaa yeelay caddeemo ayay naga hayaan goordhow waana la xirayaa adiga waxbaa gaba khanlanduu ninkaas maxkamadda ma gaaraayo intuusan maxkamadda gaarin ka hor annaga ayaa waddada istaageen oon dilayno waa gacan galnay maxaa anaga dunidan ka galnay oo xaqeena saanoo lagu rafaadinayaa anigana meesti wiil ii doodo oo xaqayga ii soo dhiciyo haddii aad adiga nasiib u yeelan weyday wiil inaad dhashid ha ka baqin hooyo aniga ayaa wiilkaaga ah maanta laga bilaabo wixii aad ugu baaneed wiilkaaga oo ku qaban lahaana aniga ayaa ku qabtay hadda oo wiilkaaga ah banaarsi ma adiga haa eedo hoo warqaddaa subarloogada wiilkayga wixii oo sharciga adiga ayaa noo qabtay maanta banaarsi waa inaad sharciga isu dhiibtaa haddii aad diididna si foolxumo ah ayaan sharciga kuu geynayaa askari cusub ayaa tahay sidaa darteed xaggayga cafis ayaad ka tahay aniga awoodda aan leeyahay ma taqaanid
sidaa darteed ayaad horteeda ugu bootaynaysaa soo maaha aniga askari cusub waan ahay laakiin arrimahaaga oo dhan waan la socdaa dembiyada aad adigu gashayna aniga way i xisaaban yihiin dembiyadaas aad gashay inaan kugu ciqaabo ayaan aniga balan sharciga ka soo qaaday waana ku xirayaa ogow aniga haddaad isku daydid inaad faraha ila soo gashid adiga gacmahaaga iyo lugahaaga labada dhinac inaan kala xooro ayaan madaxaaga hoosteeda soo dhigayaa aniga qoorteeda aad ayay u adag tahay si fududna kuma go'ayso qofka bootada badanna ayaa hor dhinta ee sidaa la soco isbatoore banaarsiin tuug maaha waa nin masaakiinta u miciino war nin sharciga raadsanaayo oo dembiyadana ku dabaasha marna ma noqon karo nin masaakiinta uma ciina darooga adigu waxaad damacsan tahay inaad anigu i dishid anigana waxaa igu balan ah isla meeshaan aad taagan tahay inaan ku gubo meedkaaga meed waa la gubayaa laakiinse meedkayga lama gubayo ogow ee waxaa la gubayaa meedkaaga maanta haddii aad baali yeelatid xataa aniga kuma dhaafayo waa ka baxsatay askeer waad ka baxsatay shaqo ciidan badan qaban waayeen ayaad kaligaada adiga qabatay dambiilihii banaarsi ayaa maanta adiga kaligaada qabatay aad gacanta ku dhigtay banaarsi aniga waxaan rabaa sharciga aad ku xadgudbaysid inaad iska dhaaftid hadduu aniga sharciga nolosheeda soo faragashtana haddii labadeena aan heshiino oon saaxiibno tuugadana awood ma yeelanayaan sharcigana awood uma yeelan karo masaakiinta xaqooda inay galaan haddii la rabo way noqon karaan laakiin marka hore adiga waxaad ii sheegtaa sababta kuu kaliftay inaad adigu dambiile aad noqotid maadaama aan labadeen saaxiibayno anigana waxba kaama qarinayo wax walba waan kuu sheegayaa anigu waxaan nin shuftay magaciygana waa dargaa masaakiinta ayaana dhici jira weligay laakiin maxaad sugaysaan hoy shufto shanabka shini akaa shukato baled iyo baadii waa soo dhammaysi maantana bagwaanka maa u soo dhigatay ii sheeg isku shix xishoodka adiga jaabka gasho bagwaankaanna adigoo bagwaan kuu yahay aniga bagwaan aniga ayaa isu ah dahabkaanna waan dhacayaa waxaanna ka samaysanayaa kan yaryar oo naagaha dumarka ay xirtaan matacbada burweene aw baarakuula waxaan kaaga tuugaa bago inaa lagaa gubo tuugaa tahay axsaan ma leedihiid wax aad ka shiicaysid ma leh wax aad ka jeeraysid ma leh sharaf ma lihid baqwaanaa u soo dhigatay isku shiix waryaha waryaa odagaagaan adiga lafahaagaad nacdaan u malaynayaa naftaad maad u naxdid hadda waxaan samaynayaa malagii ku dili lahaa ayaan afka kuu saaxiibow adiga saaxiibkaygaa tahay aniga nafsadeeda waan kuu huri karaa adiga wakhti walba goor walba aad ii baahatid aniga diyaar ayaan kula ahay nafsadeeda laakiin labadeen dhexdeen haddaan la soo gelaynin haa maya saaxiibow dhexdeena cid soo geli karto ma jirto maxaa yeelay hadda labadeena ayaa baabi'inaya kugu damacsan sharciga inay ku ciyaaraan wax kale kuma wacan jaallo wasiir waxaan wasiir kaaga dhigtay hawshayda markaan u baahda in aad adiga qabatid oo keliya wax walboo aan suurtooweynan aniga ayaa suurtagal ka dhigaayo maxaa yeelay waxaad ogaateen qofkii xabsiga saaxiibkiina idinkaga soo badbaadin karo hadduu doono gurigaan aad degantihiin idinka ayuu idinku baabi'in karaa adigu maadaama aad saaxiibkan xabsiga aad ka soo dayday sharciga xaggiisa waxaad ka noqotay nin dembila ah ninka noocaagoo kale oo sharciga nacabna annaga saaxiib ayuu nala yahay albaabkeennana waa kuu furan yahay soo dhowow kuntan soo dhowow sharciga adiga wuu ku raadsanayaa adigana annagaa kuu baahan haddii labadayna gacantaan isqabsannana magaaladan oo dhan waan baabi'i karnaa idhegayso aniga baabi'intaas waxaa ka roon anaga inaan hawsheenna iska qabsano booliiskana asaga hawshiisa iska qabsado war booliskaa sheegaydo shaqadayna ayaa ah inaan asiga baabi'inno waayo ganacsigeenna ayay hor istaagayaan maadaama aniga iyo adiga aan saaxiibnana waxaan samaynaynaa xaflad aad iyo aad u weyn xafladdaasna waxaad ka baranaysaa dadka annaga nala ganacsada waad ka raaxaysanaynaa si fiican ayaannu jebaynaa waa run hadalkayga taliye shicibkana sharciga ayaa dembiile ka dhigay aduu sidaada waxgayga la hadlaysaa isbatoore kuntan xaggiisa maantana tuugada waaweyn ayuu kuntan xiriir la yeeshay oo tuugadaas iyay yihiinne waa kuwa sharciga wax ka qaadi waaye oo macnahaga waxaad leedaha miya kuntan tuugadii ayuu ku beeray
oo weliba aabbihiis oo garsooraa dileen aniga waxaan kuu sheegayaa adiga sidaa sharciga ugu horseedaysay adiga ayaa dembiilo noqday haddii aad sharciga raacsan tahay kaniyaa u yeedho maxaa yeelay tuugadoo dhan ayuu kala yaqaanaa taas qasab ayay igu tahay kaniyaa inaan keeno taasna waxaa ugu wacan aniga afkayga hadalka ma baxo ee holac ayaa ka baxa hadda waxaad ii sheegtaa ninkaas isagoo nool maan gubaa mise markuu dhinto kadib war ninkaas anaga markaan gubno dambastiisa biyo xataa maracsiinayno anaga sidaas la soco malaga asidiiq camalaas uu kor wareega hooyaa isla berayaanna bustiiska ciheena maxaa ka rabtiin war aniga waxba ha ii bootayne yaa hadda diyaara oo ninkaa doonaya aniga maanta hawsha lagu dirayo haddii aad ku soo guulaysato macnaheed waxay tahay shakigii nooga kaa jira waa naga baxay laakiin hawshaan keligayga ayaa soo fulinayo maya waxaan kuu sheegayaa adiga kaligaaga inaadan baxaynin oo aadna ninkaas kaligaaga dili karin kulligayna waa ku wada raacaynaa haa waa runtiis annagoo dhan ayaa ku raacayna waxaana doonaynaa markuu ku arka ninkaas in uu naxyo waxaana kuu sheegayaa adiga ayaa horseed noo noqonaya hay waa maxay qaraxanna war adiga maskaxdaadu faalsa miya sideed ku ogaan weysa baabuurkaaga bamba ku jirta sideed ku ogaan weyday yaa waaya cadowga cusub oo magaalada ku soo biiray halow waa ku salaamay janjuuraa adigayaa tahay anigu waxaan ahay qofka wiilashaada baabuurkooda bam ku rakibay adiga nafsadaadana argagixiso geliyey ayaan ahay war adiga yaa tahay war aniga qofkaana iska daadinin war adiga teleefon dhudhuumashaha igu soo direen adreeskaaga si adiga dhulka ayaad iska ilaalinaysaa laakiin aniga hawada ayaan kaaga imaanayaa sidaa la soco war aniga ma taqaanid waanba fahmi laaya ninkan teleefonka igu bootayna waa kee waxaan u malaynayaa tuugaya yar inuu yahay maya tug caadi ma noqon karo ninkaan waxaa laga yaabaa inuu askari yahay yaaway nin kalagoo askarta ka soo dhex baxay oo annagana la dagaali rabo yaaway ninkaas qofkiis ahaadaba magoo ninkaan khatar waayaan ni leeyahay ninkaan waxa waaye aa ujeedii nin dangerous ah macnaheega khatar waayaan ku leeyahay burcadda magaalada waxaa goordhow daha ka qaadayo journaliste sima warkiiyo koomba ku jira anay dhiibo qofka annaka oo raba inaad sharciga noo dhiibo anaa soo xaqiiji joogaawe waxa waaye sima journalistada sidaa may u qoqday isla qalinkaas ay ayada wax ku qorayso ayada naftirkeeda ayaan ku qalaynaa markay dhimatana jaraa'idkay soo saarta ayaan karfan uga dhigaynaa laakiin idinku mid ha iloobina journalistayaalka qalinka ay wax ku qoraan isla qalinkaas ayaa wasiiro badan lagu riday haya mis shibdhehenahe anala shawi anala shaqshaqe hadday caddeemo laga hesho anaga tiirka ayaan nahay haa waa runtiisa anaga tiirka ayaan nahay ama koo tiir tabartay ma aha aan welimgo mali aroosin ani been baan sheegay waxaan umaleehaa journalistadaas gashaangna iskari oo la tahay waar naga aamusa war yaa adiga waa inaad gabadhaa soo dishaa adigana waa inaad badeecada meeshaa geydaa adigana waa inaad badeecada kor ka ilaalisaa adigana nakan adiga boorgaraamka caawa waa inaad noo diyaar garaysaa laakiin ma la socotaan haddii aad dishaan journalistadaas inay askartoo dhan annagana ugaarsanayaan ee aniga waxaa ila ron qof annaga naga mid ah inuu baxo oo soo qaado inta caddeymahoo gabadhaas naga diyaarisay oo gurigeeda yaalo adiga maad baxdid anagaa naga mid adiga shaqadaas maaha shaqo culus ee waa shaqo fudud waxaana igu ballanahay inaan soo fuliyo shaqadaas xataa nafsaddeeda khatar ha u gasho ninka weligiisa sharciga u horseedi jiray ayaa maanta tuugada heshiis lahaa wuxuuna doonayaa caddeeman inaad u qaadid la yaab male dunidan waayo qof qamar cabsan ayaa waxaa ku dhahaayo saaxiibow qamriga ha cabin waa wax xunee micnahaaga micnahaygu wuxuu yahay labadeennu maxaan ku kala duwannahay adigaba tuug ayaa tahee sharciga xaggiisana waxaad ka tahay nin dembiile ah hadda maxaa isu tilmaamaysaa adiga dembiilaaba tahee aniga waxaan kaliyo sugaa maalintii tuugadaas aan caddeemo ka helo maalintaas oo keliya ayaan sugayaa mana dhaafayo tuugadaas anigaba waxaan kaliyo sugaa oo haddana aan aniga tuugada ula shaqaynaayo in maalin aan aniga malagoodan ku noqdo oo dili lahaa haddii aan iyagu geeyo caddeemahaanna way i yaqiinsanayaan anigana si tartiib ah ayaan iyaga u dildilayaa adiga si tartiib ah u dil
anigana karfantoodan diyaarinayaa adiga karfantooda sii diyaari anigana waxaan raadinayaa qoryihii oo meedkooda lagu gubi lahaa iyo meesha lagu gubi lahaa diyaar ayaan ahay anigana sidoo kale wacaliyow xunka war hantidayda markii la gubaayo adiga xaggee jirtay war sow kuma dhihin hantidayda kor ka ilaali xaggee kala daadday igaraal ahaw yaq aniga khaladan kaa gala igaraal ahaw bas aniga khaladkayga waa khirta adiga niidaa saafi ka dhig war khaladka adiga gasha ayaa waxaygii oo dhan ku gubteen wax la gubta dad maa laga dhinta anaga maxaa isku waalay adiga war aniga dhimashada iyo hantida gubata waa isku kaymid waa kuma midka hantidayda gubay qarax aan anigu qarxiyey dhawaaqiisa dhagahaaga inay soo gaareenaan u malaynayaa aniga waataan horey kuugu sheegay waxaanu ku dhahay hantidaadoo dhan ayaan baabi'inayaa waana baabi'iyey war adiga waxbaa isqarqarinaya hortayda imow aniga si tartiib ah ayaan kuu dilayaa janguura dhimashada tartiibta ahna ayaa ugu xun ogow war aniga ayaa ku tusaya dhimashada foolxumadeeda ee hal mar hortayda imow hadda ayaa la gaaray xilligii aan iska hor imaan lahayn janguura wixii aan labadan ku balansaneen xaggeenka keena wuxuu nooga balansanaa hadda waa inaan weerar culus aan qaadnaa khasaarada nagu dhacdayna waa inaan ka soo kabsanaa anaa ra'yi idin hayo waana tareenka janguura beri hantida dawladda oo dhan tareenka ayaa lagu qaadayaa midaasaan dhacaynaa war warkaasaana iga dhaadhacaya dawladda iyo hantideedaba annaga ayaa iska leh horta wasiirka aada hadda maxaad iga soo horjeedaan idinka jini ma qabtiin mase haddaan igula soo socdaa or xaradkaa iga dhaafaani lehe beesa dawla la dhacayo baxar martiina ingiriisi maniga yeelay warkaas xaqiiga adiga intaadan wasiir noqon aabahayga ayaad mar walba lacag ka soo doonan jirta ma ilooda midaas alaashaa buuxi weenaatay hoy adoogay maalkiisa kugu maqan laakiin waa noo taala soo bax buux hoy sakanti sug horta aan wixii rabtiin waa nii suubiya laakiin waxaa yeelaysiin an idinka ma isnaqan kashaf ma jiraya tartiibko xasil waa kasana ma jira adiga dhegayso wixii lagu dhaho amarka qaada oo keliya haddii amarka qaada weesi kursigan doora camal ukunku fadhisan ugu fadhiyeys marxaba waa nii yeela waxay rabtiin san yeelahay horta luqunta igu jirtaaye waa nii yeela socda idhaafa le baxa marna idhaafa socda war adigana ma igu kaa kaantay haa anigana waxaan idinla shaqaynayay si aan u ogaado sirtiin oo dhan maantana waan ogaaday waxaan kaloo kuu sheegaya aadna ogeyn inaan anagu ahayn laba qof oo keliya aanu nahay saddex qofood oo dhiiggaagu carfaya waxaana kuu baabi'inaynaa saddexdeena si aadan weligaaba arag ana weligaaba maqal awgaashaan la sara horta ani wasiirkaan ahay laakiin adiga ani waxaan ula yaabanahay magaaladan qasdan dadkan oo rabshada wadaan buuqaan socdo adhaga ma qabtidoo maxaa dhagaa maa ka shiran tahay jaalla wasiir su-aashaas jawaabteeda mar kale ayaan ku siinayaa waxaad ii sheegaysaa oo keliya ninkaas magaalada ma ka dhoofa mase waa uu joogaa magaalada waa joogaa waa ka muufeysana mootas ku socda hataa kaa fiican yahay waryaa hoy saxo dabaaliyo goofkae hadda waxaad ii sheegtay xaggee laga helayaa cabsile kaa keenoosa waa ogtahay meeshiis joogo anaa kuu sheegaa laakiin anaa cabsile anaa kuu sheegaa war adiga soomatii shuftigii weynaa haa waa aniga shuftigii weynaa oo janguura horena waxaanu dhici jira dadweynaha iyo bagwaayada laakiin maanta waxaan dhahayaa magaaladoydin xisaabka ku dara maanta inaad gacantayda aad ku jirtid oo aan sinana ku cafinaynin war maqal war adiga waxaan gacan kugu jira ma jiraan laakiin waxaan kuu sheegayaa anigaad gacantayda ku jirtaa gaashaan la goofo garaadlaawe waa ujeedaasin kuu soo gaaday oon god kuu soo geliyey meesha ku fakalaheedaan rabaa laakiin maanta waa ku jirtaa yakaa bixiya qorshahayna labaadna saddexdaas wacal lugahayna hoostooda ayay imaanayaan sidaa la socda askari horta waxaan kuu sheegay tartuub dad saddexdaan qof madaxooda naloo waxee karo maxaa jira shacbiga maarta inaan uu kacisid oo shini camal unuga nagula shamuuma see rabta aad ka fiirso jaalwasiir saddexdaan nin sharciga ayaa dambi ka galeen tiradaan ma u suubi karno wari dhegaysta gaashaan leh haddii amarkayna la fulin waayo adiga iyo askartaan gacanta ku haayo halhal ayaanu dilayaa saldhigyadaan horgeynayaa haddana fursad dheer ayaad haysataan waa in aad gacantayda ku soo celidaan saddexdaa nin middaas makuu suurtoobaysa adiga hana ka yaabin saddexdaas nin in lagugu soo wareejiyo war askarigii guntan ahaa nin askari oo daacad ayuu ahaa adigoona ka fiirsan ayaa dembi shabsayday miskiinka kaaliya ayaa soo baxay adigoona ka fiirsan ayaa dembile ka dhigtay kaas
saddexdaasni sharciga way u hoggaansan yihiin laakiin sharcigiinnu wuu ka indhan laayahay haddana saddexdaas nin aniga ayaa laygu soo wareejinayaa sidaa la soco haddii laygu soo wareejiyo saddexdaas ninna si fool xumo ah ayaan u dilayaa sidaa la socda war adiga saddexdaas nimood ma dilin kartid waayo saddexdaas nin waxay yihiin saddexda nin adiga ku dili lahaa oo malagaaga ah haddana aniga waxaan kaliyoo sugayaa saddexdaas nimood wakhtigay imaan lahaayeen oo adiga ku dili lahaayeen alla wasiir soo dhowow waa dhawahay horta ad waa kuu gashi arrintii aan isku ogayn oo lamaad waanoo hergashi saddexdii nin waxaa la yidhi waa lagu wareejiyaa ciidanka ana kursigeega ukun camalaan ugu fadhiistaa saaxiib aad u fiican ayaa tahay qorshe saddexaad oo aniga aan degay ayaa jira marka waxaan kuu sheegayaa boorsamiinta yar inaan ku tusan doonayaa waa kuwaana saddexdii nin oo khatarta ahaa oo lagu tilmaami jiray in ay malaggayga yihiin laakiin aniga ayaa maanta malaggoodii ku noqonaya saddexdaa nin markii aniga aan dilana dawladda iyo shacabka waxay ogaanayaan in aan ahay nin geesi ah war naga aamus adigaas geesinimo waxaad ka ogtahay male geesinimo aniga ku tusinayo war aa kala gala heshiiyaan sida ay qabaan dadka